maanta maxaa la dhahaa hadal kaleeto oo xumaan ay imaado kunkan iyo boqolka ay daawanaysiin markhaati ilaahay ahaada hadda idinka hortiina u jeediin waa idaawanaysaa awoodda life kusoo furat waa leedahay cunugtaada meeshaan sakaraad ku ahe isbitaal ma geysanay lacag waa qaadataa shalay markaa baahi iyo faqiir ahayd aa kugu dul qaadanaya markii lacag aa heshay aa lacagtaada la orday maanta wax la-aan ma tihide qabiilkaagaba ugu soo tuugsaa daartide gabadhan kaale isbitaal geyso because ani keligeyga ma dhalin intaasoo dulqaadana warga afnaana waxbarasho geey oo keligeyga geey kiradooda haya meesha seexa lahayn cuntadooda haya caanahooda gadaa codadkiisa dhana haya asriinoo xanuunsaneed oo ku dhacday magacis ee ku dhacday maxaa la dhahaa ee ku dhacday magacis maxaa la dhahaa busbus ku dhacay dhaa hal gasac caano ugu gadoo diiday ma fahanteen hadda arintan intaa aamusanahay qofka markuu kuleelka dhariga kuleelka wax ka keeno waa kuleel waa xanuun والله بقول جار فيري اسكداف وحاسه والله وبالله وتالله إله يا أبو إقصر ريا كل أرناه المها السوشيال ميديا إقداف وحنا اسكت دجال نوا كداف المها السوشيال ميديا هجيني حد لكن ما بلغوا حد معناه هذا الكلام مال ببلغ سوق هذا أيام المية وحالة نكتب قوم بعد المية قوم بلغ نكتب محاسميني شن صاحبين نمو هذا ميل آلي كرمالي بريسو بحلا إيرا بحينا قوني بس ماشي أستو كده دكتور لقي بارتان عمري دكتور أنت لقي بارتان لو سمينا داودي سلا سمين كرو أو على قولي شن بق مليون ما بحيني شن بقولوا كن ما بحيني أما لايف كلها بنا أنت يلا أب معناها وركات عادي معناها والله ركاتينا ور المها اسبتال جي عنق واك waxaan u san yahay ani aabisa ay diyaar ah geey isbitaalka ma geenayso lifekaasi ku jirtaa waxa leedahay saan waa wax mid ii yeelo saan mid ii sameeyo ani waxaan u sanay meesha ku haysataa lacagta qasab waa haystaa lacag waa bixina laakiin ma aha in rakaata laga dhigo war intaas waay hadda hadii kale life kana gala inta gala war adiga ku sheeg in milyan tahay ya ku sheeg in dhowr boqol kun ay tahay anugtaan geey isbitaalka hatta si awada hadoo seexad ana brimi imaanayo isbitaal hadda fiir gabadha waxay u baahan tahay film in la suro waxay u baahan tahay nafaqo wax la siiyo meeshii ku dhaxaysataa meeshii ku dhax ka dhax ala cali والله وبالله وتالله marka telefoonka ku hadlay ina ooyo oo dhaho waa ku baryaa isbitaalka gabadha saanyaal waa ina ooyo oo cala waa waxay rabto maanta dhan ooyinteeday rabtaaba marka ooyinaayo qeylinayo way rabtaa waxa ku leedahay waa bal aad dhan waa lagu jeesjeesa markaas ada ilmaha ka tagay ada sidaan yeelay war ana ilma kama tagin ada ka tagay ani ilmahan hadii oo ay rabaan in la daaweeyo iskuulkooda iyo waxooda iyo ana weydiinay ana dhalay ma aha ina social media geysid shilinka ana aasinayo waxa kala muhiimsan shilinka meeshaas ay keenayso ee dadkaas ay leedahay wax isiyo wax yeela qof waxaan bartay ilaaha ku dhaartay inaan laga celin karin runta idin sheega ani caaw wallahi billahi gabadhaas xanuunsan ayada saan yeeshay ilaaha ku dhaartay inaan ii sheegin wax dhan ee ii sheegin aan uur ku baalama ii wax walba social media soo dhigay inta aan soo wacdo wax ii sheegi lahayd واوعي والله وبالله وتالله إله يقصر والله واوعي درب أيام دويت صدق جارة واوعي والله وبالله وإيق قبوا يسوي دين إيق قبوا تلفونك ديار والله لعقت ديار أو هذا إسبتالك ما ككرتين إسبتالك جاي ما ككرتين ما جاي نيسو وعرفت إن ماشي أنا واحد المية ماشي كوه سيرتا إسبتالك جاي ده وإذا بريء إسبتالك جاي هليران ما جاي نيسو أنا أنت جوجا ما بيحكرها شو صاحبي نمواي
اوكي هاي وهيسا ورو العقد لو اقبلay iyo waxaas maba laga hadlooyo way jiifane war waxa dhahay adiga fiir wanaaga la rajeeyaa waliga way jiifane inta soo jiife lacag inta soo milyan la iska rabaa war horta milyan halahna gaarsiye bal horta cuntaan geey hadda ma adiga hadda saan ogey ama live-kiga ku laabana ama saanay war cuntaan geey telefoonka waa ku xanaaq waajar live-kiga gasho waxa leedahay taan waayo wuu idiiday inuu wax sameeyo dollar ku dhawaado ka qaata YouTube-ka ilmihiisaan loo tuugsi asaa u tuugsi jiriyaa markhaati ee farta soo taaga ana tuugsi ay wacay ma wajirabe tuugsi ay wacay ma biyay kara ana caay ma walihibo shalay ana quruxdaas leh dhabankaas leh isguursana baahi rafaad ugu sabri jiray ninkii dhii jiri waa bax tuugso ana wax ma haye gabadha bax tuugsi ninkii dhii jiri waa ase أنا ما سوشيال ميديا إسكاني تهذا كلاتن المهاجة والعك واهيسا أنا مالك الصومالي مسكو عيبي كري ويجيني مسكفيق كري كالي عنوبتا إيه دابي ما وحبين إيه سانو أرقي نخذي دي كرا يقول دعي ما أنت مركا شال مركا هوي ذي مركا نولد موصا وهالو wixii idin waxna dhaxmar inaa ka hadla ma jecel laakiin inuu soo fariis sababtoo u dhahay maxay tahay live ko awood uu soo furnaa ma cunugiisa oo dhaho bax dhakhtar geedaawe ka waran aqli xumada horta meesho ka gaari iyo damiir xumada meesho ka gaari ma dhaho kaale gabadheeda isbitaal maxaa la dhaagay haday damiir leeyahay oo nasabnimo ku jirto wuxuu dhiilaa walaalay miya dumara tahay ina ilmaha ka xanuunsan yihiin ama ina stressanta laga geey isbitaalka wixii la dhahona dib male anaa bixinay عيبي إلهي أو عيبها دو إلهي أستر مروسو بحنا عيب بدن آها والله بداية الله أساس عيبنا إن أوتكتين وحد هذه البح الماء سودا بس أنتو لايف كوجرو ما أنت أبو ونحريست له دو أو يهي جودي سمعت سان أوها هدا إله هذا خندق كركرينيسو دخاتير تمركا جينا يوتيوب كي وحول بويا لا هل مر إنه يسوى علمي سيهن مدهن ويلو وصي حلا أفوق حلا موليه توكسي برتي توكسي دابرت يا توكسنو يعني أنا المان كهرتود مالية كان محدا وراديا اسبتال هدات isbitaal hadaa raadiyo amaanta tago isbitaal hadaa maanta tago maxaa la yidhaha lacag loo baahan yahay intee ka keenani aabi dhalay bahdo dhaa waxba igama gelin daa hadho ani ma dhalin Soomaaliya oo ay daaweynayso maanta xanuuna caadi haday tahay oo ilmeyga caadi u xanuunsan yihiin waxa dhihi lahay magacis walaal afar dhakhtar aagay afartas dhakhtarna aragtidiisu waa $40 waay hadda waxaa waaye muuqaalka aad soo dhegaysateen waa hooyo iyo aabbo aad wada taqaanin oo baraha bulshada caanka ah Abuukar Culusow iyo Samiira Siman oo Samiira tiri gabar baa iga xanuunsan aniga haddii aan ka hadlo shakhsi ahaan falaqeynta muuqaalkan live-kooda waa soo daawaday Samiirana waan daawaday Culusowna waan soo daawaday run ahaantii aniga jiji ahaan labadoodaba ma dhihi karo way saxan yihiin ama way khaldan yihiin because Samiira horto sino ku saxanto waxa waa de hooyo ilmo ka xanuunsan yihiin oo way tir lacagan isbitaal ku geey ma haysto asagana wiilkina wuxuu leeyahay bal hadda u taga oo dhahay isbitaal geey gabadhi waxa baa rikaata lagu haystaa komba ilmiga laga dhigtay ilmihii baan ku kala tagnay social media iga geenin ilmihii baa ka tagtay leedahay war ilmo kama teganaan dhahay you know hadalkiis waa soo dhageysateen Soomaan ma fiicna hadda inaan sii qodqodo macnaha boogta tuxab ka qaado laakiin maanta waxaan dhihi karaa aad iyo aad bay u fududaadeen un ahaantii carad si doonta ay ku qaado social media weliga ay lahaa hubha uga dhigan familkaaga ama wax adag kugu soo noqon doono iyaan lagaa qabanin
sidoo kale asxaabta waxaan si qaas idinkaga codsanayaa please and please gabadhaas walaasheen inaa usoo duceysin inuu ilaahay caruurteeda u caafiyo anagana ilaahay hanoo caafiyo intii ka xanuunsayin caruurta ilaahay u caafiyo baaryaalna allah uga dhigo insha allah anagana allah nooga dhigo waxaana leeyahay maslaxa kheyr qabta ilaahay dhexdooda ha dhigo waxaa la dhahay labadii a isureyninoo ha ishaleynina isma horeysiin ilmahaas qurqurxo badanaa idinka dhexeeyo please and please si hoos hoosa arrintiin maaragtay u xalsadaan idin leeyahay calafka hadduu dhammaaday waxaa idinka dhexeeyo ubaxaas oo waxa waaye adduun iyo aakhiraba aa wadaagaysiin okay xataa aakhirada ku wadaagaysiin soo saas la socda insha allah tacaala because waalidkaaga waa uun walaal aakhiro ma jiro ogtihiin muslimiinta dhan wada walaalaha laakiin waalidkaaga aakhiro wuu jiraa adduuna wuu jiraa soo maadaama weligiinba aa kala herayn oo ilaahayba maaragtay dhiiggiina isku lifaaqay waxaa fiican inaan si maaragtay sharaf ah hoos layskugu dhamaysto dee meeshaan dhiig layskama keenin laf layskama goyn aynoo waa careysan tahay hooyaa tahay ilmaa kaa xanuunsan waa dareemi karaa baay macaan ilaah ku caafiyo culiso asagana wuxuu aad iyo aad ugu qaldanaa inuu life kasoo daba furto gabadha si doonto ee qalad u samaysay ma ahayn sharaf inuu life kasoo daba furto waxay ayadana mobilkeedana waco inuu dad iyada u dhow xataa yiraahdo war gabadhi ha loo tago war gabadhi ha lee caawiyo saasaa wanaagsaneed maadaama asaga nin rag yahay ma fiicneen dadna in layska gadgado aniga I don't know wax faa'iido ay keenayso ilmahaaga weji ka sameyso dad waxa wejiha ka sameysan dad ha u noolaanin okay wixii laakiin maaragtay garab ah amba caawinaad inay samiir usoo istaagto xaqay u leedahay waxaa yeele waa hooy ilmi ka xanuunsayin aniga sida ay la tahay waaye adiga maxay kula tahay daawada xagga commentiga noogu dhaaf pagekan haddii oo subscribe ku weyn subscribe saara sidoo kale tiktokeyga haddaadan follower ku weyn wax badan baa ku dhaafayo follower soo dhaho alaabaan aad arkaysiin dhan waa from tiktok shopka waxa waaye honest review aan idin samayn doonaa insha allah tacaala sidoo kaleetana waxyaabo badan oo waxaa jiro soo socdo cusub hadda idinma hordhacaya waa arki doontiin follower sii dhaho pageka waa idin salaamay waa inoo muuqaal xiga insha allah tacaala oo xiise leh